agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland mudane Maxamed Cabdi Gurxan ayaa tababar muhiim ah xalay u furay saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalada cashuuraha Somaliland ee tubataariyada ee ka howlgala magaalada Hargeysa. Tababarkaasi ayaa ciidanka lagu tababarayay casharo ku taxalluqa daryeelka macmiilka iyo xiriirka bulshada. Agaasimaha horumarinta maaliyadda Mr. Gurxan ayaa kula dardaarmay saraakiisha iyo ciidanka ilaalada cashuuraha ee tababarkaasi loo qabtay inay si wanaagsan ula dhaqmaan cashuur bixiyaha, kaasoo madashaasi ka sheegay inay muhiimad weyn qaranka iyo wasaaradda u leedahay xaq dhowrka iyo daryeelka cashuur bixiyuhu. Agaasime Gurxan waxa uu sidoo kale madashaasi ka sheegay inay ka wasaarad ahaan ka shaqayn doonaan sidii loo kobcin lahaa aqoonta ciidanka ilaalada cashuuraha. Howlgal cashuur samaynaysaan markaad ilaalada cashuuraha ku jirtaan, agaasimaha iminka sheegay waa inaad sumadii qaranka ayada wanti wadda haddaad taagan tahay, haddaad cashuur ururinayso waa inaad qaranka haybadiisa ku matashaa dhaqan wanaag, akhlaaq wanaag, tilmaan wanaagsan oo arrimaha ilaahay kaga cabsataa fulinteeda oo aad ilaalisaa xuquuqda iyo waajibaadka cashuur bixiyayaasha iyo xafiisyada aad la shaqaynayso. marka inta badan fariinta inagu soo noqotaa waa fariin runtii u baahan in wax weyn laga bedelo. askarteenu markay haday wada maris la macaamilayso, haday liisan wax weydiinayso, haddii ay cashuur inoo ururinayso, dee rag iyo hablo qiimo leh baa ku jira. wax weynna waynu ka bedelnay. madaxda ciidanka ilaalada cashuuraha waan uga mahad celinaynaa, har iyo habeen heegankay ugu jiraan, laakiin halkii aynu doonaynay weli maynaan gaadhin. caasimaduna waxay u baahan tahay tusaale u tahay sida ciidanka ilaalada cashuuruhu caasimadda uga howlgalo ee uu shaqada u qabto baa tusaale u noqonaysa howlgalka ciidanka ilaalada. sida aad ula hadasho, sida aad ula dhaqanto, sida aad uga falceliso waxay fariin u diraysaa guud ahaan qarankeennii u diraysaa. marka bilaa caleeg inaga wanaajiya habdhaqankeenna, fariinteenna, inagoon intaa in la eg cashuurtiina ka tegayn. waa inaynu dhaqan wanaagsan oo islaamnimo oo iimaan ku salaysan waa inaynu muujinaa, cashuurteennana urursanaa. waynu ku dadaali doonaa aqoontiinu inay noqoto aqoon waqtiyeysan oo macadkii tababarka oo kale la xoojiyo, barashada cashuuraha la xoojiyo, tababaradana ay saraakiisheenu inoo wado la xoojiyo, aqoontiina kor loo qaado ayaynu ku dadaali doonaa. waxaa kaloo iyaguna madashaasi ka hadlay agaasime ku-xigeenka waaxda cashuuraha beriga mudane Khadar Maxamed Khadarlaas iyo taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha Generaal Cismaan Xaashi Daahir, kuwaasoo iyaguna kula dardaarmay muhiimadda tababarkaasi. yidhi marka aad baan ugu mahad celinaynaa runtii af Soomaaliga wanaagsan iyo sida wanaagsan ee uu inoogu faahfaahiyey waajibaadka iyo xuquuqda ee naga saaran cashuur bixiyaha iyo waajibaadka gaarka ee naga saaran shaqadan aynu ka shaqaynayno sida ay tahay. dadka u dhaxayno oon dhiirigelin samayno oon qofka soo dhaweyno kursiga uga kacno oo nidhaano hebel soo dhawow, haddii maamulaha laftiisu si adag ula hadlo inaan dhexdhexaadino innagoo u qoslayna oo garhka u salaaxayna in cashuurta laga shubo. marka waxaan leenahay insha allah aqoon isweydaarsigani wuxuu faa'iido inoogu yahay sida innagoo iskaamsanayna. weliba waxaan jeclayn iyadoo mar kale aan ka dhigan doono innaga iyo maamulayaasha inaan saa loo wada joogo oon aqoonweysiga laisdhegaysto oon halka ay wax ka toosan tahay marka la kala maqan waxba la kala sheegaa iyadoo la isdhex joogo ay ka wanaagsanayd. marka insha allah waqti kale aan ka dhigan doonaa. waxaan agaasimaha ku leeyahay diyaar baan nahay insha allah. annagu hameen iyo saal waan wacyigelinaa, erayadaad noo odhanaysaa faa'iiday noo yahay, tababarkuna faa'iido noo yahay. si kastaba ha ahaatee wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland ayaa muddooyinkii u dambeeyey xoogga saaraysay kor u qaadista iyo kobcinta wacyiga howlwadeennada cashuuraha iyo ciidamada ilaalada cashuuraha. Guulad Cunaabi, MMTV, Hargeysa.